وعن daawadayaal mar kale soo dhawaada deegaanka Aboorey labada maalin si maxaa mudooyinkii u dambeeyay Aboorey diirada ay saarneed maxaa soo kordhay oo Aboorey wili ururka al-shabaab isaga sugan yihiin iyadoo halkaasina wili aan laga saarin ayna soconin dhaqdhaqaaq military oo dawladda iyo macawsleyda beesha xawaale ay ku doonayaan in mar kale ay Aboorey gacanta ku dhigaan maxaa Aboorey 10 cisho ka badan iyadoo dagaal ka socday haddana ay dib ugu soo gurteen macawsleydii beesha xawaale iyo sidoo kale dawladda ciidamada ka joogay Aboorey ee kaabiga ku hayay mar kale inay Aboorey la wareegaan waan kula wadaagi doonaa xogtaas oo dhameystiran ha iga cararin ila joog muuqaalka like saar share gare sidoo kale janaalka xuquuqdiisa iska sii oo like iyo sidoo kale subscribe to dhac isaga sii mar kale aad iyo aad ayaad u mahadsantahay soo dhawaada deegaanka Aboorey ee dhaca wabiga Shabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa mar kale saad ka war hayseenba mudooyinkii u dambeeyay dagaal ba'an waxa ku wajaheen iyaga iyo dawladda federaalka Soomaaliya halkaas oo ay isku fara saareen guud ahaan ay dagaal ba'an oo dhagaha la qabsaday daryanka hubka culusna ay u joogi waayeen dadka deegaanka ee reer Aboorey halkaasina ay ka qaxeen iyagoo halkaasina isku badashay khasida koonfurta Soomaaliya daryanka iyo hubka culus ay dawladda iyo al-shabaab iyo ciidamada macawsleyda beesha xawaale isku adeegsanayaan ayaa ugu dambeyn waxa ay iskood ugu soo baxeen ciidamada macawsleyda beeshaasi xawaale iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo Aboorey gabi ahaan banaanka isaga soo baxay ururka al-shabaab halkaas uu baneeyo ay isaga saraaxaysanayaan beerihii Aboorey sidoo kale wabiga jiinkiisa ee wabiga Shabeelle maxaa sababay talo dawladda ciidamada beesha macawsleyda xawaale iyo dawladda isgarabsanaya maxaa wali ay Aboorey ugu fara adeegeen ururka al-shabaabna ay ugu bixin laayihiin maxaa halkaasi ka jiro oo dhibaato ah oo ay dawladda wili ugu dhiirin laadahay in Aboorey ay si buuxda ula wareegto halkaasina colaada dagaalka hubka iyo sidoo kale kuleelka Hiiraan ka jiro in mar kale ay reer Hiiraan nasiib u yeeshaan maxaa ay dawladda u baday iyo sidoo kale macawsleyda beesha xawaale waxa dhibaatada inta badan ku keenay ayaa in aysan halkaasi duqeymo ka jirin sidoo kalena beesha xawaale ciidamadii halkaasi ka joogay ay gacmo deysteen daaleen sidoo kalena ay waayeen gurmadkii ku filnaa ee ay dawladda federaalka Soomaaliya la garab joogtay dawladda aan ognahay in ay xoog saartay aadan yabaali eeriyadeeda iyo masaayidka cali guduud ayaa ugu dambeyn waxa ay guul darro inta badan kala soo kulmaysaa deegaanadaasi iyo mar kale ururka al-shabaab la wareegayaan sidoo kalena ay dib ugu noqonayaan in ay ururka al-shabaab halkaasi la wareegaan hase ahaatee Aboorey ayaa ka mid ah deegaanada gobolka Hiiraan ee ururka al-shabaab ay si buuxda gacanta ula wareegaan iyagoo aan wali baryo ku joogin oo dagaal halkaasi uu ka dhacay maxaa wali dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka kaashanaysa kuwa midowga Afrika ay joogaan ee Itoobiyaanka gobolka Hiiraan sidoo kale macawsleyda beesha xawaale ay ka barbar dagaalamayaan in mar kale ay Aboorey ururka al-shabaab intaanay gacanta ku hayaan ayaa dad badan waxay u arkaan in ay ku qarsoon yihiin arrin siyaasadeed oo halkaasi ku jirto iyo odawaa sidoo kale maxamed sanay waxay ku sugan yihiin muqokori waa gobolka Hiiraan degmada muqokori oo ay ku sugan yihiin gacantana ay ku hayaan macawsleyda beesha xawaale iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya in mar kale ay la wareegaan ururka al-shabaab degmada aadan yabaal oo isaga soo cararaan guud ahaan saraakiishii iyo ciidamadii ku sugnaa kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo macawsleydii beesha abgaal ay ku sugnaa in ay ka soo yaaceen sidoo kale ay maangaliyo u yihiin xawaadle haddana xawaadlihii la dagaalami lahaa ururka al-shabaab ee Aboorey ka saari lahaa ee bariga gobolka Hiiraan gabi ahaanba ka xoreyn lahaa in ay cunaqabateyn ka jirto oo wali si hufnaan ay ku jirto aan wali dagaalkii loola galaynin halkaasina aan duqeymo laga fulinaynin ururka al-shabaabna wali si buuxda ee loola dagaalamaynin halka dawladda awaad dadaale ee leedahay ciidamo badan ay geysay Aboorey haddana waxa la dhihi karaa kuma filna Aboorey ururka al-shabaab oo soo habar wacday halkaasina wixii ka joogay ciidan galbeedka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha dhexe waxay iskugu gooyeen Aboorey iyo eeriyada aadan yabaal halkaas oo labadaas degmo doonayaan in gabi ahaanba ay gacanta la wareegaan waa la ogaa aadan yabaal wixii ka dhacay waa la ogaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee halkaasi ku naf waayay in ay yihiin kuwa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee doonayay sidoo kalena hame u lahaayeen ururka al-shabaab maalin ay arkaan gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo xor ah ururka al-shabaabna ay ku sugneen hase ahaatee nasiib darro waxa ay wali dhaxleen dagaalo ba'an iyo sidoo kale in ururka al-shabaab wali deegaanadii ay halkaasi ku naafoobeen ay wali weerar ku soo qaadayaan degmooyinka qaarna iyaga qabsanayaan hase ahaatee madaxweynaha ayaa kol hore sheegay isagoo ku sugan muqokori in xawaadle uu ku filan yahay ururka al-shabaab kaliya ay ku caawin doonaan duqeymo iyo sidoo kale ciidamada qaar ka mid ah oo beeshaasi saacido hase ahaatee wixii dhan oo madaxweynaha muusan fulinin oo waxa dagaalka wali ku jiro ayaa ah ciidamada macawsleyda beesha xawaale iyo ururka al-shabaab wali duqeymo halkaasi la falgalin si mar kale looga saaro Aboorey uma baahna in ciidamo dhulka kaliya la geeyo waxay u baahan tahay in cirka loogu daro ururka al-shabaab halkaasina gabi ahaanba looga saaro duqeymaha ayaa ah
in mar kale ay ururka al-shabaab aboorey isaga baxaan waxa ugu muhiimsan ee ugu fudud ee looga saari karana waa duqeymo halkaasina beesha xawaale mar kale si nabad ayay ula wareegi kartaa ay ku naaloona kartaa degmadeeda qadiimiga ee webiga jiinkiisa ku taala ee aboorey dhinaca kalena waxa aboorey lagu arkay cajiibka ayaa qoryo aan hore loo arkin oo ay ururka al-shabaab adeegsanayaan Soomaalina laga waayay qoryaha noocooda iyo sidoo kale gumaca hore ee rasaasta ayaa laga waayay gabi ahaanba gudaha Soomaaliya iyadoo dawladda wadanin rasaastaas ay ururka al-shabaab adeegsanayaan sidaasina dad badan oo ka faalooda arrimahan ayaa sheegay in gacan shisheeye ay halkan ku jirto sidoo kalena in xuutiyiintii ay gacan saar kala lahaayeen ururka al-shabaab in ay qoryahaasi ka helaan noocooda aan wali lagu arkin gudaha Soomaaliya halkaasina ay ciidamada dawladda haysanin qaabka ay dawladda u wajahdeen ay tahay in ururka al-shabaab ay gabi ahaanba gacanta ugu horeysay ay leeyihiin ay tahay xuutiyiintaasi oo ay ka helaan gacan iyo sidoo kale duqeymo balaaran iyagoo halkaasina dhibaato badan u geysto shacabka Soomaaliyeed rasaas aan la garanaynin iyo qoryo waaweyn oo aan lagu arkin guud ahaanba bariga Afrikana ay haystaan ururka al-shabaab abooreyna ay halkaasi ka difaacanayaan waa hadaag daawadaha ugu horeyn waxaan ka codsanayaa hadii aad inta nala soo gaartay inaad janaalka subscribe iyo xuquuqdiisa iska siisa subscribe dhac ku sii muuqaalka like saar share garee saaxiibadaada la wadaag sidoo kalena u duceey ummadda Soomaaliyeed ee dagaalada ay haligeen in mar kale uu Ilaahay qalbigooda isu dhayo mar kale aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawada.